Dowladda Itoobiya ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigtay laba ka mid ah dableydii habeen hore salaadii subax weerartay saldhigga degmada Boorame ee gobolka Awdal. Sidaasi waxaa wargeyska Geeska Afrika u xaqiijiyay ilo xogagaala. Dableydan ayaa markii ay howlgalka fuliyeen waxa ay qaarkood u tallaabeen xuduudka Itoobiya kadib markii ay howlgal ay ku raad joogaan fuliyeen ciidamada ammaanka ee Somaliland, waxaana dowladda Itoobiya ay qabatay laba ka mid ah kooxahan hubeysan ee howlgalka fuliyay. Kadib markii ay dowladda Somaliland ku wargelisay Itoobiya inay kooxahaasi u tallaabeen xuduudkooda. Sida warkani sheegaya, dowladda Somaliland ayaa isla shalayba ka codsatay Itoobiya inay u soo gacan geliso labada xubnood ee weerarkaasi geystay ay gacanta ku dhigeen. Kooxdan oo howlgalkooda sheegtay Suldaan Wabar ayaa waxa ay fuliyeen howlgal kooban oo aan geysan wax khasaare ah, waana howlgalkii u horeeyay ay fuliyaan tan iyo intii uu madaxweyne Bixi qabtay talada Somaliland sanadkii 2017.